بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله waxaanu maanta nasugu soo laabanay halkan inaan kasii wadnaa daruustii ama shuruuxdii aan ka bixin jirnay magacyada alle subxaanahu watacaala. magaca maanta aan soo qaadanaynaa xalaqadan maanta wuxuu ku saabsan yahay magaca alle alfataax. waa magac runtii yani haddii aad sii darasto aad garanayso inaad mar walba u baahan tahay subxaanahu watacaala inaad ilaahay ku barido. saad ula socotaanba ilaahay wuxuu yidhi magacyada alle markii aad baryaysaan ilaahay ku barya magacyada alle subxaanahu watacaala. alfataax micnaheedu waxa weeyaan allihii kala furayay, allihii qadiyaadka ama arrimaha kala xukuminayay, allihii muxuu ahaaye mafaatiixda qeybka oo dhan gacantiisa ugu jiraan, oo raxmad hadduu soo dejinaya isagaa furaya, hadduu daba inuu furana cid celin kartaa ma leh. allihii subxaanahu watacaala arrimaha iyo qadaayaaga iyo arrimaha iyo maaragtay qadyadaha laisku haysto ilaahay subxaanahu watacaala si xaq ah u kala saarayay waa alle alfataax. magaciisuna waxaa ka mid ah alfataax. magacan originalkiisu waxa weeye waxuu ka yimid kelmadda la yirahdo fataxa. marka alfataax la leeyahay waxa weeye waa kusii xeeldheeraad, waxaad kusii xeeldheeraanaysaa macnahaas magacaas oo alfataax. fataxaada ama xeeldheeraantaasu waa xeeldheeraan la xiriirta badnaanshaha ilaahay waxa uu kala furayo iyo nooca waxa ilaahay uu subxaanahu watacaala kala furayo. marka kaman waa nowcan ba ilaahay u saaxiibka ah weeye. ficilkaasoo kale cid kale oo bani aadama ma yeelan karto aan isaga ahayn subxaanahu watacaala. waxaa lamid alrazaaq oo kale oo wuxuu ka yimid razaqa. waxaa ka mid oo kale alwahaab, kelmadda originaalkeedu waa wahaba, kanina waa alfataax, kelmadda asalkeeduna waa fataxa. ilaahay subxaanahu watacaala haddaba albaabada oo dhan ayuu furaa. ilaahay wuxuu furaa albaabkii la furi waayuu furaa. isaga unbaana awooddaas keliya iskale. waxaana kaloo niri waa siiqad mubaalaga oo ka timid fataxa alfataax. waxaanu soo aragnay maaragtay kelmadan alfataax ma magacan qur-aanka hal meelay kaga jirtaa. waxay ku jirtaa fi suuratu saba markii ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay qul yajmacu baynana rabbuna ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. waxaad ku tiraahdaa nebi maxamedow annaga ilaahay baa sukaayo keenaya annaga iyo idinka. ثuma yaftaxu baynana isagaana na kala saari doona oo wuxuu nagu kala saari doonaa bilxaq wahuwa ilaahay subxaanahu watacaala alfataaxu allihii subxaanahu watacaala wax kala saarayay weeye oo wax ku adkaanayaana aysan jirin, haddana u saaxiiba cilmi weeyaan allah subxaanahu watacaala. meesha kaliya ayaa maarata magacaas alfataax ku arkaysaa, laakiin dabcan macno badan oo kelmadaas asalkeeda oo siyaabo kale loo isticmaalo miirana waad arkaysaa. waxaa ka mida mathalan yowm alfatxi baa xataa jira oo ah yowm alqiyaama in ilaahay subxaanahu watacaala dadka uu kala saari doono. muxuu ahaaye waxaa kaloo kamida kelmadaha miftaax ma arkaysa qur-aanka in badan ku arkaysa. aayaddan baa jirta oranaysa wacindahu mafatixu lghaybi laa yaclamuha ilaa huwa wayaclamu ma fi lbari walbaxri wama tasqutu min waraqatin ilaa yaclamuha walaa xabatin fi dulmaati alardi walaa ratbin walaa yaabisin ila fi kitaabin mubiin fi suuratu alancaam aaya 59. 7 arrimood buu ilaahay sheegay subxaanahu watacaala. waxa uu ku bilaabay kelmad cajiiba aayadatan ku bilaabanaysaa. waxay leedahay wacindahu ilaahay xaggiisa, ilaahay agtiisa ayaa mafaatixu lghaybi oo dhan ay jiraan. yacni waxaa lasoo hormariyay cindahu micnaheeda waxa weye cid kale awooddaasi ma laha aan isaga ahayn. way noqon kartay in la yiraahdo mafaatixu lghaybi cinda allahi, markii saa la yiraahdo mafaatixda qeybka ilaahay agtiisa taallaa markii la yiraahdo macnaha qof kalena way ag ooli karaysaa weeye. laakiin markii lasoo hormariyey yani ag oolidaasi ama lahaanshaha
ficilkaas markii lasoo hormariyo oo layiri ilaahay agtiisa ayay mafaatixul ghayb oo dhan ay taallaa laa yaclamuhaa ma ogaan karaayaan cid kale ilaa huwa mooye ilaahay wuxuu ogyahay marka maa fi lbari walbaxri maana waad garan kartaan waxa ay soo koobayso aad iyo aad u tiro badan weeye waxalaale wixii beriga ku sugnaa ilaahay bay u sugnaadeen wixii badda ku jiray oo dhanna ilaahay bay u sugnaadeen waa uu ogyahay subxaanahu watacaala wamaa tasqutu min waraqatin caleen soo dhacdaana ilaahay hartaa waad aragteen adduunka intuu la egyahay iyo geedaasi ay u tiro badan yihiin caleentu soo dhacda ilaahay waa uu ogyahay wala xabatin xabad masaga ah oo maanta maaragtay iyo meel mugdi oo dhulka ka mid ah ku jirtaana ilaahay waa uu ogyahay subxaanahu watacaala meel qoyan iyo meel yaabisa ilaahay waa uu ogyahay subxaanahu watacaala kullina waxay ku sugan yihiin fii kitaabin mubiin kitaab cad oo wixiisu ay wada cad yihiin oo waadix ay yihiin ayay ku wada sugan yihiin waxaan kaloo suuratu acraaf ku arkaysa aayad oranaysa ka sheekeynaysa xaaladda nabiyullaahi shucayb iyo dadkiisii markii ay kala baxeen oo ku heshiin waayeen diinta dadkii ay qaadan waayeen risaaladii wuxuu yahay markiina waxay ka dalbadeen inuu dee hadda kasoo baxo diintaas kasoo laabto waatuu markii dambe ku jawaabi uu leeyahy qad iftaraynaa cala allahi kadiban allaanu ku been abuuranay maanta haddaan in cudnaa fii millatikum diintiina kusoo laabano aan ka tagnay weliba bacda id najaana allahu minhaa kadib markuu ilaahay naga badbaadiyey wamaa yakuunu lana an nacuuda fiiha mana noo ahaanin inaan ku laabano diintaas ilaa an yashaa allah inuu ilaahay doono mooye wasica rabbunaa kula shayin cilman ilaahay wax walba wuxuu deeqsiyey cilmigiisa cala allahi tawakalnaa ilaahay baanan dul tala saaranaynaa rabbanaa rabbigeeno iftax baynanaa wa bayna qowminaa meeshaas oo ladan lahaa aayadda ilaahowna kala saar annaga iyo qoomkeenna xaqna u kala saar wa anta khayru lfaatixiina wax kala saara dad adiga ugu khayr badan ilaahayo subxaanahu watacaala walaalayaal magacan yani waa magacaad u baahannahay mar walba ay wax jirna u noqdaan waan meel u dhaqaaqna weyno ilaahay wuxuu noo sameeyey magacan oo kale in aanu ilaahay ku barino marka haddii aad maaragtay aad ikhlaas la timaadid haddii cibaadada iyo aqbalaada iyo soo laabashaha alle uu kaa dacad yahay ilaahay subxaanahu watacaala waa uu ku aqbalayaa sababtoo ilaahay waa alkariim weeyaan ilaahay maanta bani aadam haddii aad laba goor marka inta barido intuu kaa xishoodo qof gob ah hadduu kaa xishoodo waxaa laga yaabaa inuu wixii aad ka dalbatay ku siiyo soo maa haddii bani aadam maanta ay taasi ka suurtowdo alle subxaanahu watacaala maxaad moodaa allihii subxaanahu watacaala mafaatixul ghaybi cilmigaas oo dhan iyo awooddaas oo dhan ay kulli gacantiisa ay ku jireen waxaa macnaha kale ee alfataax ay leedahay waxaa ka mida ilaahay subxaanahu watacaala qalbigaaga ayuu daboolku intuu ka qaado ayuu maaragtay wuxuu noqonayaa qalbi kala garanaya xaqa iyo baatilka markaasaa si yaro oo fudud waxaa ku qaadanaysaa xaqii oo ku arkaysaa wixii kala baatilka ahaa ise ilaahay waa kuu kala saaraya ilaahay subxaanahu watacaala alfataax markii la leeyahay waxaa kaloo ka mida micnahaas wuxuu noqon karaa quluubta mu'miniinta ilaahay wuxuu usii kashifaa macrifada alle ayuu sii baraa markaasi kusii dhagaano sii qabsadaan qofka caasiga ahna marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u furaa baabka maaragtay dambi dhaafka u furaayo markaasu inta ilaahay dambi dhaaf weydiisto ilaahay uu aqbalayaa subxaanahu watacaala haddii aad walaalayaal aad maaragtay maanta u khaalis yeesho niyadaada oo aad ilaahay subxaanahu watacaala hamigaaga iyo walwalkaaga iyo rabitaankaaga iyo jacaylkaaga iyo ka fikirkaaga oo dhan aad ilaahay ku soo koobtid ilaahay subxaanahu watacaala lisaankaaga macarabkaaga waxa uu ka yeersiiyaa xikmad buu ka yeersiinayaa sababtoo ah waad ajiibtay haddaa mar ajiibtayna ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalaha ugu horeeya oo ku siinaya waxaa ka mid ah xikmadda waxyaalaha ugu horeeya oo ku siinaya waxaa weeye inaad wixii kala arki karaysa xaqa iyo baatilka ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalaha ugu horeeya oo ku siiyana waxaa ka mid ah inuu diinta ku fahamsiiyo oo aad maaragtay cilmi u yeelato oo aad hadhowto si fiican usii qabsato subxaanahu watacaala magaca kale alfataax magaca ilaahay alfataax waxyaalaha ilaahay kuusii furaya waxaa ka mid ah inuu ilaahay maanta kuu furo albaabka weheshada alle subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala haddaa wehel ku noqdona haddee
dadkoo dhan baabaad ka cararaysaa oo waxaad rabtaa mar walba ilaahay inaa u dhowdahay waxaa wehel kuu noqonaya hadduu ilaahay wehel kuu noqdana maanta cid kaa maqan midna male wuxuu ilaahay subxaana watacaala kuu furaa oo kale aliqbaalu calayhi in aad maaragtay aad jeclaato wadooyinkii alle subxaana watacaala ku gaarsiinayo oo dhan yani inaad maanta yani cibaadadiisa jeclaato inaad jeclaato meel allaala meeshii khayrka lagu hayo oo ilaahay magaciisa lagu xusayay inaad jeclaato waxa weeye aliqbaalu calayhi wey ilaahay taasuu kuu fududaynaya subxaana watacaala ilaahay wuxuu kuu furayaa inuu baabkii ka raalli ahaanshaha inuu kaa raalli noqdo baabkeedii ayuu kuu furayaa waxaa laguu sahlayaa wadooyinkii ilaahay kaaga raalli noqonaya oo dhan buu ilaahay kuu fudu maaragtay ku sahlaya subxaana watacaala walaalayaal maadaama ilaahay uu ilaahaygaas yahay subxaana watacaala waxyaalaha nolo kaga baahan yahay waxaa ka mida inaan annaga ku faraxsannahay ku faraxno inaan leenahay ilaahay saasoo kalea ilaahay markii annaga jiq nagu noqotaba aan ilaahay u laaban karayno subxaana watacaala aan oran karno yaa fataax yaa caliim ilaahu ii fur arrinka ii kala furdaami oo ii kala fududee oo ii xalli markaa si sansiira haddee yani annaga xaggee ka keenna sheekada ilaahay baa noo ballan qaaday waatuu suurat albaqara ku yiri waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaanii falyastajiibuu lii haddii addoommadayda ay ku weydiiyaan anigay kaa weydiiyaan oo nabiyullaahi maxamedo waxaa ku tiraahda fainii qariibun waa u dhowahay ujiibu dacwata daaci midka wax baryaya markuu baryana waa ajiibaa markaasaa laakiin ilaahay laba dalab yar buu dalbaday oo ah falyastajiibuu lii ha i ajiibaan waliyu'minuu bii hanay aaminaan keliya intaas keliya ayaana laka raba inta haddiina laka helo walaalayaal wax allaale wixii khayra wax allaale wixii ballamo ah iyo wax allaale wixii yaboohid ah wax allaale wixii ballanqaada ilaahay maaragtay qur'aanka ka noogu sheegay oo dhan miftaaxeeda waa intaas falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii marka walaalayaal yani adiga oo rabbigaagu uu yahay alfataax adiga oo rabbigaagu uu yahay alrazaaq adiga oo rabbigaagu uu yahay alwahaab adiga oo rabbigaagu uu yahay dhuljalaali walikraam yani runtii marnaba ma aha in aad yani calool xumaato in aad walwasho midna ma aha sababto rabbigaa waa rabbigaagaas rabbigaagu waa rabbigaas ilaahay magacyadiisa noogu sheegay kitaabka allah subxaanahu watacaala arrimaha kaloo loo baahan yahay runtii in la sameeyo waxaa ka mida walaalayaal in aad adigii isku daydo sifaadkaas wanaagsan ee ilaahay uu leeyahay inaad adigii wax ka qaadato oo ficilkaas quruxda miirana ilaahay uu maaragtay ku tilmaaman yahay inaad adigiina isku daydo inaad wax ka samayn karta aad ka samayso oo maanta ilaahay hadduu ku siiyo awood dhaqaale hadduu uu ku siiyo inaad adigiina dadkii maaragtay ay dhibto hayso aad muxuu ahaay aad gacanta u furto oo aad maaragtay dhibta haysa ka qaado oo albaabada ka xirxiran u furfurto si ilaahay adigana uu kugu furfurnaado oo uu maaragtay khayrka uu kuu siiyo oo uusan kaa kala joojinin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ilaahay waxa uu kaalmeeya addoonkaas yani kullama uu addoonkaasu kaalmeynayo walaalkiis kale addoonka marka adigina waxaa lagaaga baahan yahay inaad saasoo kale u furfurnaato oo aad dadka ugu furnaato aad dhibta iyo culayska ka qaado sababtoo kan baahan waa imtixaamaya midka wax haystana waa uu imtixaamaya kan baahan wuu imtixaaman yahayo waxaa la rabaa oo la eegaya sida uu yeelo kan wax haystana waa la imtixaamaya waxaa la eegaya bal sida uu yani waxa ilaahay siiyey ugu dhaqmo oo maaragtay oo u maareeyo waxaana kaloo rabaa inaan idin sheego ilaahay markuu maaragtay yani rabo inuu wax furo cid hor istaagi karaysaa male haddii ay waxaasi ay joogsadaanna cid furi kartaa midna male ilaahay hadduu wax bixinayana bixitaankiisu aad iyo aad buu u weyn yahay maaragtay waxaad xusuus ahaan usoo qaadan kartaa umu ismaaciil oo haajar ahayd markii nabiyullaahi ibraahim iyada wiilkeeda yar uga tegay maka meel aad maka aad garanaysaan oo aan waxba maaragtay ka taagnayn oo meel saxaro ah
oo cidlo ah oo aan biyo midna lahayn markuu meesha dhigay buu ka tegay. markaasa ay markay ogaatay waxa kan inay yihiin waxyi ayay iyana waxay tiri ordoo iska tag, ilaahayna dayici maye. waatay marka ay labada buur u kala ordaysay, safa iyo marwa. markii dambena waa tii ay meesha cagaha uu ku hayay nabiyullahi ismaaciil ilaahay kasoo burqiyey biyaha zamzamka oo ilaa iyo hadda socda. hada huwa alfataax. ilaahaas alfataaxa ah ayaa arrinkaas suura geliyey. marka walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu kuu furi karayaa maskaxda kuu furi karayaa, iimaanku kuu furi karayaa, xikmaddu kuu furi karayaa. mafaatiixdaas oo dhan gacantiisa ugu jirtaa. marka mar allaala markii waxa ay ku adkaadaan ama baahi ay jirto oo ay albaabadii oo dhan kaa xirmaan, ilaahay albaabkiisa ayaa ku furan. waxa keliya oo lagaa doonaya waxa weeye in aad ilaahay u khaalis noqoto, cibaadada ku keliyeysid, isaga mooye cid kale aadan wax ka rajaynin, weliba aad ku sii kalsoonaato in ilaahay uu arrinkaas kuu xallin doono. lianno ilaahay markaad barido subxaanahu watacaala, baryidda aad baryaysid ilaahay jawaabteedu waxay noqon kartaa inuu ilaahay ku siiyo, inuu ilaahay subxaanahu watacaala dhib kugu soo socota kaa hayo, iyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala yowmulqiyaamo uu kugu kaydiyo. waxaa la yidhahdaa qofkii bani aadamka ee mu'minka markii yowmulqiyaama la xisaabiyo oo la yidhahdo khalaas jannadaad gelaysaa, markuu farxo ayaa waxaa leeyahay waxaa loo tilmaamaa saro iyo qusuur iyo jannooyin meel shishe ka muuqda loo tilmaamaa. ma garanaysaa waxaas? markaas wuxuu leeyahay maxaa weeyaan yaa rabbi? markaas hataa waxaas oo jannooyina iyo qusuura adiga iskale. markaas wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu sidee ku mutaystay? markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waxaad ku mutaysatay ducooyinkii aad yowmalqiyaame annaga adduunka intaad joogteen ugu bari jirtaan kuu kaydinay, waxaasoo dhan adiga iskale. markaas waxaa la yidhahdaa qofkaas addoonka ahi wuxuu tamaniyaa ducooyinkiisa oo dhan in dib loogu dhigo. laakiin dabcan annaga markaa hadda adduunka ku noolahay 60 sano ama 70 sano aan adduunka ku noolahay, wixii karkabana haysato oo indhaheenna iyo focuskeenna o dhan waa intaan weeyaan. laakiin runtii marka aad sii baarto arrinka waxaad ogaanaysaa nolosha rasmiga ah ama runta ah waxay taallaa yowmalqiyaama. aayado badan baana noo tilmaamaya ay ka mid tahay qofku markuu leeyahay yaa laytanii qaddamtu lixayaati, shallaytadayday allo maxaan usii horumarsan waayay noloshayda wax khayraadoo maantoo kale i badbaadiya. marka waxaa fahmaysaa runtii inay ahayd meesha la rabo in lagu dadaalaa inay tahay yowmalqiyaama acmaasheeda. waxaa marka hadda farxad leh in aan weli nool lahay oo dhulka korkiisa soconno oo maanta ay inta istaago ama dhaqaaqo ficil khayra qaban kara ama 2 ragca tukan karaayo oo camal saalixa la iman karaayo si aan hadhowta aakhiradeeda ay wax u tarto. marka walaalayaal insha allah si uu ilaahay annaga wax noogu furo oo khayraadka noogu furay raxmaadkiisa, annagana yaynan ka xajinin dadka kale raxamaadka iyo khayraadka. waxa kan xoolaha aanu isleenahay waad leedihiin waana la ku ammaanaystay. xoolaha walaalayaal waxaa la rabaa inay noqoto gacanta aan xoolaha ku haynaa inay noqoto sidii gacan ammaano ah oo la rabo ilaahaygiina siiyey subxaanahu watacaala inaan u hayno. meelaha oo noo fasaxay keliya inaan ku bixinno isagaana marka hore waxa kana siiyey. wa anfiquu min maali illaahi aladii aataakum, la baxa oo nafaqeeya oo sadaqaysta maalkii alle subxaanahu watacaala uu idin siiyey. hada huwa allahu alfataax. ilaahay insha allah arrimeen ilaahay noo kala furfuro oo si wanaagsan noogu dhameeyo. jazaakum allahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.